sida la sheegay dalka waxa imanaya qaxoonti Afghanistan oo deganaansho ku meel gaar ah laga siiyay qaxoontiga hablaha la socda maxaa kaaga qorshaysaa hablaha waan ka naqaysanayaa marka Soomaalidiina dad weyn noqon waayeen magaranaysa hablaha waxa iga qorshaysan in la guursado dhalinyarada Soomaaliland ee guurdoonka anigu waxaan guursanayaa 7 hablood hablaheena Soomaalidu way qaaliyoobeen sanad soo shii qaaleynayaan ragina waxa ma hayaan oo wada xayraan madhooyaan marka waxaan leeyahay in wadaad guur ka qaaleyseen أنا هابلا أفغانستان كمان عندي أفرفر كورسينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا البرتني وبرت يوتيوب channel كله إنه كابة تي في. برتاسيون على بك سوق بينه سؤالك كلا دوان واسو نكوي دينا دوينا كنا المقالة برا. عاوز سؤال سأل وده واحد هاد dalka waxa iman doona oo deganaansho ku meel gaar ah ka helay sida ay xukuumaddu xaqiijisay qaxoonti ka socda wadanka Afghanistan. Qaxoontigaasi waxa la socda sida la sheegay hablo iyaguna reer Afghanistan su'aashaasaan weydiinay dadweynaha reer Burco sida ay ku soo dhaweyn doonaan taasoo ay kaga jawaabeen siyaabo kala duwan saaxiib waxa ku soo dhawaataa YouTube channel Kaaba TV adoo ku bilaabay magacaaga walaalo wadhawahay magacaaga aniga maxamed karaama la yaqaan kuuliba maxamed karaamow saaxiib sida la sheegay dhawaan waxa imanaya dalka habla Afghanistan oo qaxoonti Afghanistan dalka lagu soo dhaweynaya hablaha ku jira sida u aragtaa arrinka walaal way soo dhaweynaya arta hablaha Soomaaliya Afghanistan way soo dhaweynaya aad baan soo dhaweynaya deemka hableeni Soomaalida waxayna qabsadayba qaar dibniida wax gelinayo irbadinta la leeyahay garanaysa tafuqay barre loorin jiray marka macal kubkii bay soo sameynayaan oo irbada laga midaya hablaha maxaa kaaga qorshaysan hablahaas kuwa wax leenahay noo soo badiyo waliba war soo dhaweynayna aad baan mahadsantahay wala wax ku soo dhawaataa barta YouTube channel-ka ku leenahay Kaaba TV adoo magacaaga ku bilaabay magacayga waa Amiin Jibriil waan ku soo dhawahay Aamiinow sida la sheegay dalka waxa imanaya qaxoonti Afghanistan oo deganaansho ku meel gaar ah ka helay dawladdu siisay qaxoontiga waxa ku jira hablo maxaa kaaga qorshaysan horta waxa iga qorshaysan inuu hablaha كوي بابا نجبته ولا حبلا دينا سود ونقول لكن دينا بدو ذكرين هذا إسلامي نديهم كقب سنة وإسلام تيلا بدهم كقب سنة يا كابتن يلا يا الكابتن يلا باكستاني مركز صوت أتكو سومالي دا كو أفغانستان كان لا بدو كقب سنة إنه هاي كو سومالي كل مرة مساعة وبا تنوع فهم مساعة يوم رات شغل كتادي كديو كقب وشين يسا كرسي كوري يسا تنوع يا كيف كوسو دينا سنة بينو تكو أضو كل بيو ku qeylnaya waxa ku soo dhawaataa YouTube channel-ka Kaaba TV adoo marka hore magaca ku bilaabay xagganaagi walaal magacaygu waa Bashiir Salmaan Jaamac Bashiirow sida la sheegay dalka waxa imanaya qaxoonti Afghanistan oo deganaansho ku meel gaar ah laga siiyay qaxoontiga hablaha la socda maxaa kaaga qorshaysaa hablaha waan ka naqaysanayaa marka Soomaalidiina dad weyn noqon waayeen magaranaysa waxaan hablihiin khalaas bay noqdeen magaranaysa marka dumar daanu aynu magaranaysa hadii kulliba dad cusub noo imanayaan oo kolay noo soo dhacay dawaynu ka habaysanayna war kale ma leh sababta kuwa Soomaalida ku diiso oo Afghanistan kan ku doonayso iyagana Soomaalida waa isku indha badan oo dad baan noqonay markasta soo taagan magaranaysa marka inaad waxay tirayaan baayarba Soomaalida dhanba la sheegayo aad ma sansax wala waxa ku soo dhawaataa YouTube channel Kaaba TV adoo magaca ku bilaabay walaal waa ku dhawahay YouTube-ka Kaaba TV magacaygu waa Cabdiqani Cali Barre sida la sheegay waxa imanaya dalka oo lagu soo dhaweeyay dad qaxoonti Afghanistan dadka waxa kamid ah hablo ayaa la socda hablaha maxaa kaaga qorshaysan hablaha waxa iga qorshaysan in la guursado dhalinyarada Soomaaliland ee guurdoonka anigu waxaan guursanayaa 7 hablood oo diyaar u ahay inta kalena waxa weeyaan afar baan guursanayaa afar baa doonaysaa sababta aad hablaha Afghanistan ka afarta ugu guursanaysaa oo nocma waxa weeyaan hablaha waxaan u guursanay way habla ajnabiga dalkeeni bay yimaadeen dalkoodina way ka soo qaxeen marka waxa waajib u ah inaan hablaha aan guursado maadaama aan hay Cabdiqani Cali Barre oo caawa ka hadlaya Kaaba TV soo dhaweynaysaa markaa waan soo dhaweynayaa hablaha waxaan leeyahay dalka imaada waynu guursanaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa soo dhawaada magacaygu waxa weeyaan Sakariya Abdullaahi Axmed Sakariyow su'aal kaftan reer Burco weydiinay ma ku weydiinaya su'aashaas waxa weeye dad qaxoontiya baa imanaya oo reer Afghanistan dalka deganaansho ku meel gaar ah dalka ka heleen dalka waxa la socdo
hawlaha maxaa kaaga qorshaysan anu hablahaasaan doonaynaa kuwa halka jooga gaari kara mayno lacagtooda iyo waxooda kuwaasaan u karaysana guri aan doonaynaa anagu kuwa Soomaalida dooni mayno sababtu waa nacmo sababtu waa dhaqaale la'aan weeyaan oo dee wadarta waddanka waxa ka jira dee markaa taa nolol saxanase ayaga meesha dadka nolol saxanase magaras aynu soo dhaweeyno laakiin dee kuwan la gaari kara maayaan waan ku dooray waxa iska sheeganayaan la gaari karaan dee inaan markaa kuwan baan doonaynaa anagu markaa magacayga walaal waxa weeye guuleedow sida dalka la sheegay waxa imanaya qaxoonti reer Afghanistan oo deganaansho ku meel gaar ka helay qaxoontiga waxa ka mid ah hablo oo la socda hablaha maxaa kaaga qorsaysan saaxiib waxa ugu qorshaysan aniga shakhsiyaanteeda markaan ku sheego saaxiib hadday dee qaar laga qaadan kara yihiin magaras aad baan soo dhaweynaa haddii kalena saaxiib dee waxaan ku leenahay dee iska jooga bartiina saaxiib soo dhaweynaysaa laakiin wax aad ma garanaysaa qaar aad guursanayso waxaas ay saaxiib daan waxaan guursanay mid bari weyn ma guursanay saaxiib kowdade sababta aad taa Afghanistan ka ku guursanaysa ta kalena aad Soomaalidana aad ku guursanaysaa yaa abti Soomaalida waa isku dhabadanay saaxiib aad baan isku dhabadanay wax walba mid Soomaaliya ma saarnay habeen walba xog soo dhawaata YouTube channel Kaabi TV adoo magacaaga ku soo bilaabay magacaygu waa Maxamuudow sida la sheegay dalka waxa imanaya qaxoonti Afghanistan oo waliba deganaansho ku meel gaara dalka ka helay maxaa kaaga qorshaysan qaxoontiga waxa la socday baa la yiraahdaa diina mar isku baqtiyaan ayay laakiin naaga ma ahan dawrayaan wixii diina mar isku baqtiyoon weeyaan marka sababta aad kuwa Soomaaliga ku Soomaalida ku diiso kuwa Afghanistan ka ku doonaysa waa nooc waxaan ku diiday kuwa Soomaalidu washiraad keenayaan garees kuwan kalena dee wixii macnihi bay dhaadhacsiino YouTube channel-ka kuleyna Kaabi TV adigoo magacaaga ku bilaabay walaal waan ku dhawaay Kaabi TV magacayga waxa la yiraahdaa Jibril Jaamuse Jibril Jaamacow sida la sheegay dalka waxa imanaya qaxoonti Afghanistan hablaha la socda hablaha maxaa kaaga qorshaysan والله كل ولا كل مركي قحنتي ما قحنتي كسته حبل ووتا marka su'aashii ijilciyo qaxoontiga hablo ma habla gaar isbiisha laba masuud dadka waa dad qaxoontiyo soo guuriya laakiin waxa la socda de hablo iyo wuxoodi waa dad wata de familkoodii oo dhameystiran waa dad qaxoontiyo dalka yimi habla qurux badan oo reer Afghanistan wala socda waxa kaaga qorshaysan horta ma karo waxaan leeyahay dadka qaxoontiga la soo dhaweeyo waayo qaxoonti waxay leeyahay xaq way mudan yihiin la soo dhaweeyo marka waan jecelahay marka labaad waxaan leeyahay insha Allah taala kulleeyde hablaha markay kulleeyde ay dalka tan dal yimaado dadku ay qaxaan dal yimaadaan inta badan kullee waa la guursadaa marka waxaan leeyahay kulleeyay muwaadiniinta reer Soomaaliland inay ka faa'iideystaan adiga maxaa kaaga qorshaysan ani xaqiiqo ma aha anigu waxaan insha Allah taala waxaan iga qorshaysan insha Allah soo dhaweeyo anigu soo dhaweeyo ha insha Allah taala ha aad baad mahadsantahay daawadayaal intaasi waxay nagu soo gabagabay su'aalihii aan la dhex qaadnay dadweynaha ku nool magaalada Burco taasi oo ay si kala duwan ugu jawaabeen fadlan hadaa ku cusub tihiin YouTube channel-ka subscribe dhaha like dhaha oo share tana ku muujiya commentigana ha ilaawin